بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله waxaan ugu bushaareynaa bulshada gaar ahaan dhalinyarta hanka iyo hal abuurka ganacsiga leh inaan u qaban doono tartanka hal abuurka ganacsiga oo ujeedadiisu tahay in dhalinyarta lagu dhiirigeliyo sidii ay u abuuran lahaayeen ganacsiyo kala duwan haddaba tartamayaasha waxaa lagu kala saari doonaa shuruudo kala duwan oo ka mid tahay number 1 fikradda ganacsi ama ganacsigu ma yahay mid cusub ama curdin ah oo ugu yaraan hal sano shaqeeyay labo baahi intee leeg baa loo qabaa ama suuq fiican ma leeyahay ganacsigaasi number 3 hantida ku kacaysay ma u caddahay tartamaha sida uu ku keeni karo number 4 aqoonta khibradda iyo waayo aragnimada uu tartamuhu u leeyahay ganacsigan iyo sida uu uga meel dhalin karaba number 5 faa'iidada uu ganacsigani bulshada u leeyahay ama shaqooyinka uu abuuri karo sanadka ugu horeeya tartamayaashana insha Allah waxa kala saari doona aqoon-yahano ganacsato ah barayaal cilmiga ganacsiga ka dhiga jaamacadaha Amuud iyo Eelo iyo sidoo kale bangiyada kala ah Dahabshiil Bank, Dar es Salaam Bank iyo Premier Bank oo goobjoog u ahaan doona xafladda gabagabeynta iyo shahaado guddoonsiinta kana qayb qaadan doona kala saaridda qaybta ugu dambeysay isku soo baxda insha Allah haddaba waxaan ku wargelinaynaa cidii xiiseynaysa inay ka qayb qaadato tartankan inay u doonato foomka codsiga xafiiska Boorama Job Center ama xarunta shaqada Boorama oo ku yaala bariga magaalada Boorama una u dhow iskuulka Alqalam codsi qabashadu waxay socon doontaa ilaa bishan September ee ku jirno 20keeda iyadoo xafladda gabagabada ee abaalmarinta lagu guddoonsiinayo cidii ku guuleysatana la qaban doono 27 bishan insha Allah wixii faahfaahin aad u baahataan ama su'aalaad haysaan waxaad la xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinka soo baxaya ama emailka sida iyo nasiib wacan